qaab maxaa dhahday hebel baa meesha ku soo baxay baad ku farxday xukuumaddu aynu ognahay dhaliilada dul hoganaya oo heshiisyada ay gashay cidda ay u gashay iyo cidda u saxeexday iyo cidda hawsha hormuudka ah ee xukuumadda xabar ka jirta ay tahay aynu isla ogno dhammaanteen aynu ka wada dheegsanahay in qofka arrimaha noocaas oo kale lagu xidho marka saxaafadda runtii ka difaaci maayo wixii eediya dhaliila ay leedahay xukuumaddu iyadaa laga rabtaa sharcigii kala xadayn lahaa iyaga iyo saxaafadda iyadu arrintaa iyada ah soo bandhigto oo soo gudbiso waana lagula shaqaynaya laakiin inay arrintu ku socoto wareegto lagu xidho joornaalka qof doonistii inay ku socoto oo markii ay doonaan qofkay doonaanna ay xidhi karaan qofkay doonaanna ay sii dayn karaan oo odhan karaan waxa lagu sii daayay saamaxaad qofku waa inuu yeesha xuquuq u yeeshaa haddii uu dembi galayna loo maraa sifaha sharciga loo maraa waad ogeydeen dhawaanaha kan xubnihii saxaafadiinta la xiray waad ogeydeen kuwa hadda u xidhan waad ogtihiin arrintaa iyada ana waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay joojiso saxaafaddu bacarkana waa dhaliilaysaa xaq bayna u leedahay inay dhaliisho wax alla wixii dhaliil aanu leenahayna waanu qaadanaynaa wixii ay nagula gafaana waanu iska difaacaynaa wixii sifa sharci loo mari karana sifaha sharcigaanu u maraynaa oo hay-adaha sharciga baanu u maraynaa xukuumadduna intaasay xaq u leedahay xaq u leedahay xaq gaaroo iyadu u leedahay inay iyadu gacanteeda kaga aargoosato xaq uma laha hadday taasi sii socoto dee waxay noqonaysaa aniguna inaan cabdirashiid gacanteeda kaga aargoosan karo marka uu igu sameeyo wax ila xuquuq siman baanu leenoo dastuurkuna siinaya inaan gacanteeda ku aargoosan karo arrintaasna runtii taasaan iyana ka hadlayaa ugu dambayntii waad ogeydeen xisbigu wuxuu ka hadlay arrinta dekedda arrinta maxaa saldhigga waad ogeydeen dekeddii wixii inagaga soo noqday buuqii ka dhacay waad ogeydeen marka koowaad ma jirto ilaa iyo haddeerto heshiis qoraal ah oo soo gaadhay hay-adihii dowladda ee markii hore lalahaa waa memorandum of understanding ama MOU oo heshiisyada waa la keeni karaa heshiis yimi oo dambe oo ama saldhiga ama dekeda ma jiraan marka koowaad marka labaad ma jirto wax maalgelin oo muuqato aynu aragnay oo dekedeeni ee la gelinayo marka saddexaad shaqaalihii iyo ballanqaadadii la sameeyay shaqaaluhu sidoodii noqon doonaan waad ogeydeen idinka tabinayay dhibaatadii ka dhacday iyo shaqaalihii qaabkii loola dhaqmay oo ilay gacan ka hadal ay arrintii gaadhay waxaad kala ogtiin oo hadda dee ruumarska dalku ku jira ay ka mid ah in arrintii saldhigu ay nabadgelyo gacan biyoodkeennan oo ahaa runtii dee nabadgelye ahaa ay dhibaato kusoo kordhisay oo ay dadka qaarkii eedda saarayaan arrintaas saldhigu inay tahay inkastoo aynaan caddayn u haynin wixii aynaan caddayn u haynin ku dhiirashadoodu runtii aanay ficnayn laakiin qayb bay ka noqon karaysaa iyadana ood ogtiin dad Soomaaliya oo leh Somaliland u badan in lagu waxyeeleeyay xukuumadduna runtii roolkii iyo dowrkii lahayd ayaan ka qaadan arrinta iyada ah runtii waxyaabaha kale aad u dhaliilayna waxaa ka mid ah dekedda maalgelinteeda dhinaca servicekii ay qaadi jirtay dowladdu markay ugu yaraato bishii waxaa ka soo bixi jirtay lacagta 2 milyan iyo bara ilaa 9 milyan oo dollar ka soo bixi jirtay marka sanadka la isu geeyo 108 milyan maalgelinta layna leeyahay dekedda la gelinayo 432 milyan marka waa matter of 4 sanadood bay ku soo baxaysaa lacagta loo baahan yahay in lagu maalgeliyo dekedda markaanu si maartay runtii cilmiga aynu u soo bandhigno marka xukuumaddu waa inay caddaysaa dakhligan maanta lagu wareejiyey shirkaddan DP World ee ah inay qaado iyadu servicekii oo waliba iyo hadday doonto si alla sida ay doonto markay doonto ay kordhin karto waa lacag service oo golayaasha qaranka maraynin wax muuqdo ay dekedii ka qabanayso oo dhismeen aanay jirin arrinta iyada aan runtii waxaanu jecelahay in xukuumaddu warcad ka soo saarto aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh su'aasha koobaad haddaad qaato magacayga waa Safifa Somali Community Journal Sadaa عشان يفهمون كل الرئيسين اللي حصلوا منها مين منهم زيادة نفسك عن وجود الرئيسين واللي بقى وجود كل هاي حكومتنا حتى سمعنا لك عن الإنسان وواحد من هذا وشعب سمعنا لك داوني هذا حكومته دليلها واعي لحكمتك كم كانت ولا وزيادة وحصل على قرارات شعب كويسة أتناسو بس واحد من هذا مركان كتري أي عقبات كده دليلها شعب يساعد أبدا ما تصدق أرتا وارد الحكومة كاملها ولو من 10 سنة يصدق بالوضع الحكومة كاملها waxaan nina ka qarsoonayn xilliga aanu joognay waxyaabo badan oo maanta jira inaan jirin tusaale markaan kaaga soo qaato waxaan kamid ahaa guddigii wada hadalka la galay DPWL 15 bishii shanaad 2015 afartii shirkadood aanu la hadlaynay waxay ahayd shirkadii ugu liidatay marka loo qiimeeyo waxay ahayd shirkadda Polore shirkadda MSC
iyo shirkadda Prime Africa iyo shirkadda DP World oo waliba markaa magaceeda bedeshay PN oo aan kula hadlaynay waanu ku soo kala kacday shirka waanu ku qanci weynay heshiiskii iyo waxa ay soo bandhigeen iyo proposalka ay keeneen waanu ku qanci weynay marka waxaan cadeynayaa inaanay de markaa jirin oo tii anigu aan ku qanci waayay sanad kadib 2016 la soo bandhigay sifa aan sharci ahayna lagu meel mariyay marka koowaad tasalligo kale damage oo dhibaato jirta ma yahay inuu resource dalka lama wareejin way dhici kartaa waxyaabaha qaar kood oo kale tan imka xarkaha goostay musuqmaasuqan iyo boobkan hadda cid waliba wareynaysa wada sida uma jirin horumar baa dalka ka socday waxaad moodaysay xukuumaddu markii aanu anagu meesha ka tagnay inay uun ku itaashay si ay ula dagaalanto cidii ka soo horjeeda wixii dhaqaale ahaayeen horumar u isticmaali jiray inuu isticmaasho political fund iyo in dad gaar lagu naasnuujiyo iyo arinta kale oo ah sideedaba xukuumaddu marka waqtigu sii dhamaanayo dadku way ka jeestaan waxyaabo badan way ka jeestaan waxaanay u jeestaan oo dadka qaarkood u jeestaan waliba inta ma oran karo xukuumaddu waa wada maxamed ku wax ku jirtaa musuqmaasuq way ku wada jirtaa ama dhibaato ku wada jirtaa dad badan oo nadiif oo laga helaya marka waa iska yimaada xilliyada noocan oo kale laakiin dhibaatooyin maanu dhibaato la'ayn oo qofka shaqeynaya dhibaato way ka hor imanayaan caqabado way ka hor imanayaan uu fulin kari waaya dhibaatooyinka iyo baahiyi jiray laakiin sida aan ku sheegay kuwaas ma jirin kuwa wada hadaladu hadarta iyo aan dhaliilay qaabkoodu ma jirin saxaafadu sidan hadda ay u jirto ee uma jirin laakiin walaga inay wax ka jireen Soomaad garan mar walbana waxaad ogaataa ninka wasiirka ay meesha ka shaqeynaya waxa ku shaqeeyaa siyaasadda madaxweynaha ee markaa jirta marka waxa jirta eed laba u qaybsantaa mid collective oo la wada yeelanayo iyo mid gaar u noqonaysa hoggaanka markaa jira markastana waxa badanaysa ta hoggaanka gaarka oo noqon maanta way adeer haddii xukuumaddii waa waxyaabaha aan ka hadlayay marka arrinta nabadda ka hadlayay ay 10 af inagu la hadasho inagu waxyaabaha u baahanahay waxa weeye inay cadaadaan xukuumaddu waxa ay heshiisyada ay gelayso oo koow bulsho weynta Soomaaliland u cadaadaan number 2 inay si sharci u maraan golayaasha sharciga ah inta kaliya aynu ku dhalan horumar ma diidanin dekada berber waxay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay sida ay hadda tahayna inagana inaguma filla marka mana fiir garay karo wadamada deriskeena kama fiir garay karo oo dhaqaalaheena kuma kobcin karo waa ogol loo taw diyaar baan u nahay laakiin waxaynu rabnaa habka loo marayo waxaynu isku haysanaa waa dhaqanka iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee doctor wixii diblomaasiyadda iyo siyaasadda dibadda dalka inuu xil saaran u leeyahay heshiis ma jiro haddana golayaashii aad ogtihiin oo taagnaydeen wixii ka dhacayay arintaynu ka hadlaynaa waa taas waxaynu leenahay war maamul xumaa jirta oo waxa jirta awood oo si khaldan loo isticmaalayo waxa jirta naas nuujin cid gaar ah lagu naas nuujin baraadhiga dhaqaalaha dalka taasaanu ka qaylinayna oo leenahay mustaqbalkaaga iyo masiirkaaga aan u hadlaynaa marka taasaanu ka hadlaynaa oo maanta كده كده marba maalinba tii kii taagan aynu ka xoogaaga muxuu ahaa xaqul qalinka laga qaadanay miya sax noqonaya mise waxa sax noqonaya labadooda hadii la oran karo mid ba inoo dhib yar inaga waxa inoo dhib yar ka dekada waayo dekada hadii wixii ala qalayno manage gareeyo leerogu maamulana damage ka sidii ka yaraanaya marka ma adsantii واحد كتير هواي شيء الله كشيء كده في البلاد هذا سكر ما هو مقل عميل على حق القلب قاعدين يساعدون مع هو كان مريض ومري لها سكر كده وما ندينا بقوله شو اسمه قلبه كمان هو كلاش كلام waxay ahayd sababta lagu diiday waxa in afarta shirkado ay tartamaan oo la bidgareeyo waxa la hayirgeliyay company caalami oo niiraas loo oran jiray oo inaga eegayay heshiisyada caalamiga iyo qaababka loo galo waxa loo yeeray looyaro reer Soomaaliland oo qaarada dalka Ingiriiska joogay qaarada Djibouti joogay dabadeedna waxa yahay in afarta company la tartansiiyo ka ugu haboonayo afar qaybood laga eegayo aqoontiisa awoodiisa dhaqaale farsamo yaqaanada uu haysto tamaamul iyo heer meelaha laga eegayo cidii ku guuleystayna arrinta la siiyay marka saas ay ku baxday